حاليتو مد waxaan wacay Soomaaliland والله في أنا صاحب هذا إنسان xalay mid Soomaaliland jooga wacay هاي oo aan saaxiibnahay waxaan ku yiri ii warano iskuul baa u socdaa buu igu yiri هاي waxaan ku doonaysaa ma iskuulka wuxuu yiri luqadii baan baranaynaa afka Soomaaligan ka guuraynaa هاي de wu mi du wang yin yung luqadii aan baranaynaa buu oo cusub لو وارو ببغلسة waxaan maqlay wadanka magaca laga bedelayo luqad cusub aad baranaysaan wax walba in la bedelayo from zero laga soo bilaabayo wax walba maxaa ka jira ومارو ببغلسة ولي ورت عنو يا رواتهم براني كودي اي الحمد لله رب العالمين اي كودي اي marka waxa weeyaan imaka tuubaraaci si fiican baan u tuubaraaray toos wadda inoo sii furaysaa insha Allah bidilaahi kariim waxaan ugu faraxsanahay inaanu ka badbaadnay maanta meesha maanta maree ku cadeynay in xalay tolo raashinkii ummadda masaakiinta lagu boobay maxaa ma raashin lagu booba ni Omaro update ma tiida horta garanaysa ay media Soomaaliya aad u xalay waxaan ku mashquulsanaa Donald Trump iyo Putin dagaalkoodii iyo markabkii baan ku mashquulsanaa xamar iyo waxa markabkii la kala qabsaday kaasaan ku mashquulsanaa ilaa saaka dagaalkii adduunka inuu huriyo laga baqayo anigu meel fog baan wararka ka dhigdhigaystaa iyo meelaha fog baan aadaa Soomaaliya iyo ma markab Soomaaliya raashin u waday baa la qabsaday oo la bilaqaystay ما بخار بابا لا تبصي مقدشو كيالي بخار كي دبليو اف بي بالا جبصدا ها كعب كيمياء جبصدا oo boobay mise dawladda jabsatay no dawladda jabsatay baa leeyri dawladda halka ka jirta ay de halkaas wax mara aniga Xasan Sheekh Maxamuud baan awal taageeri jiray habeen dhaweyto muddo 4 cisho ka hor baan ka haray ay doontiisii Puntland baan hadda u ololeynayaa inay ictiraaf hesho waxaan ku jiraa dadka hadda maanta video baan soo duubay annata yahu kula hadlayo on leeyahay ictiraaf baan u baahanahay Xasan Sheekh Maxamuud anoo wata oo tunka ku sita aniga way iska qadiyadeedu waa meel suka fudayd weeye baanina isdagaalsanahay buu casumay ma garad fanaan ahaan buu nina isdagaalsanahay buu casumay صح de waan tuuray looga yaro aan sameeyo taala ahayd iyo wixii aan sameeyo dhan waa kala daadiyay aakhira aan dira hadda Puntlandteedii baan saga laabtay oo oleelaheeda ku jira ictiraafkeeda صح idinkuna de ictiraafka hesheen kama xumin anigu waxaan dadkii ugu horeeyay idin fahmbaliyay oo idin yiri noolaada horay u socda danihiina raacda wixii ma garanaysaa de idinka xuno idin yiraahda uma qalantaan iyo buufiya waxaas laakiin dadka ku soo hoos noqonina idinku danihiina ka haysta Soomaaliya iyo afaaraheeda iyo bakhaarada iyo wixii la jabsanaya ku soo hoos laabanina hawshiina qabsada Soomaaliland bixin baxa maxaa information kan u raadinaysaan oo Soomaaliya hawle u raadinaysaan oo idinkaga maqan لو Omaro midba ku sheegaya Omaro midba ku sheegaya ay maqlaysaa Omaro way maqlaysaa hade ونيوم ما دب خدك كاحم ما لو qofku hadii aan maanta laba nin baynay Soomaa baabka burca madhig baa wax ka maqal hal dhig imaka ma maqashaa si fiican ma maqashaa si fiican ma maqashaa si fiican ma maqashaa imaka laba nin baynu nahay Soomaaha laba nin baynay Soomaaha haddaan xumaantaada ka shaqeeyo oo waxaagii kasta wanaagsan maanta Omar haddaan xumaantiisu anigu aan baaro oo wax kasta wanaagsan oo uu sameeyo aan maxay ahay toolay ka shaqeeyo adigu soo xumaantaydu kama shaqeynaysid aad iyo aad ilaahayro Soomaaliya xumaantaydu bay ka shaqeynaysaa anaguna xumaan kasta oo ay samayso waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa oo aanu falanqaynaynaa oo aanaa ka aamusan weeye horta hadda ma fahanti aad iyo aad marka waxa weeyaan hadii ay ayagu maanta dantooda gartaan habeen walba imaka Muqdisho mudaharaad baa ka socda eeg imse jirmaa tahay imaka dadaad waa imse adiga
aniga 30 baan kor u dhaaf 37 meelahaas soddon iyo toddobaad jirtaa weli ma maqashay madax ka socota Soomaaliya ama madaxweyne Soomaaliya ka socda oo ka degay Soomaaliland ma maqashay inta aad jirtaa aqliga lahayd maya okay dadkan halka kala taaganahay muddo taariikhdaas aanay ogeyn shacabka og inaanay madaxdoodu maanta ninka dhalinyarada aniga daaday leeg ama adiga ku leeg ee maanta og inaanu madax ka socdo Soomaaliya weli inta halka ka tagtay aanay Soomaaliland ka degin haddana la leeyahay Soomaaliland baa goday miyaanay ahayn su'aasha inuu weydiiyo madaxdiisa Soomaaliland haddii awal baa idinku u tali jirteen intaasaanu jiro intaasaanu arkayna maxaa loo arki waayay madaxweyne Soomaaliya ka socda Soomaaliland taga su'aashaas inuu weydiiyo ma ahayn horta niyow dadka dhalinyarada yararka ah oo jiilka cusuba baan siyaasadda iyo Soomaaliya say kala ahaan jirtay iyo meesha laga yimid iyo waxaas oo dhan dadkaas ay u duubnayn oo garanay laakiin dadka caqliga iyo dadkii taariikhaha iyo dadka wax baaray wax research gareeyay way garanayaan meel kasta iyo wax walba siday kala ahaayeen Soomaaliland waxay ahaan jirtay meel la ictiraafsan yahay oo awalba la aqoonsan yahay oo wadan ay ahayd waqooyiga iyo koonfurta la kala ahaa waqooyiga waxaa gumaystay Ingiriiska Kenyada saxta Ingiriis baa gumaystay Uganda Ingiriis baa gumaystay adduunyada gumaysi bay ku jirtay markii ay gumaysiga ka baxday oo ay heshay aqoonsigeedii iyo gooni isbitaageedii markay heshay ayadoo calankii wadata ayada Soomaaliya soo raadsatay Soomaaliya markii soo raadsatay oo ay wax isku darsadeenna ayada waxeedii markii wax la isfahmi waayay waxeedii la laabato tir waa la laabto waxaygi anigu hadda waxa tiri Soomaaliya inta jirto madaxweyne ka yimid Soomaaliya oo Somaliland tagay miyuu jiraa hadda haddaan damco inaan Puntland madaxweynuhu ma imaan karadii hadda ma imaan kara Xasan Sheekh Puntland qofku awoodiisa bay ku xiran tahay iyo hubku haysta iyo aaminaadu is aaminsan yahay kalsoonidu isku qabay ku xiran tahay imaatinka madaxweynayaashii waxa hadda Xasan Sheekh Maxamuud hadda iraado ma imaan karo garow ma imaan karo hadda ma tigi karo way hayaan dini oo Axmed Madoobe uma tigi karo 15 sano Axmed Madoobe halka haysta uma tigi karo isku imaansho la'aanta iyo waxaasi wax qiil weyn ama aha laakiin waxaan ka hadlayaa Djibouti waxay noqotay wadan Somaliland waxay noqotay wadan Soomaaliyana waa Soomaaliya meelaha kale sida NFD iyo galbeedka iyo meelahay raacsan yihiin bay raacsanaanayaan Soomaaliya waxay noqonaysaa wax saa u dhuuban qaaradu 7kii way ka baabaaday saas wax u dhuuban hadda Google-ka hadda geliso waxa ku soo baxaysa wada saa u dhuuban oo kale ilaan isabanka ka dhigaysay waa idinka waa laga jara hadda maapka geliso Somaliland waxa ku soo baxaysa country waa wadan baa laga dhigay waa la aqoonsaday waana la aqoonsan lahaa way soo socoto wax soo socday ahaayeen oo meeshaan la yiraahdo South Sudan ba waa laga gooyay Sudan intaan dagaalkan iyo hoogi ba aan ka dhicin marka sababta la idin gooyay khayraad la idin ka raadinaya ha ahaato in wax la idin la cuno ha ahaato in dhulka la idin la yeesho ha noqoto waxay doontaa ha noqoto idinka iskala wixii qof kasta wixiisa asaga iskale hadduu wixiisa gadayo hadduu cunayo hadduu maalin sarrifanayo dhaxalka Soomaaliya arag marka la qaybinayo markii ciyaalka la kala siiyo mid waxa jira ku qayla mid waxa jira dhul ku dhista mid waxa jira marka waxaad waa haysataa walaal haddaad la tagi lahayd haddaad la aamusi lahayd haddaad la wareegi lahayd waxa kuu soo haray arrinkan dhibka in la isdhibo adaa u baahan oo challenge u baahan without challenge oo haddaan lagu soo hadal qaadin waa saqiiraysaa soo in lagu dhibo in lagaa sheekeeyo in ma garanaysaa wax lagugu qabsado wixii baa xataa sii naaxaya laakiin haddii lagaa aamuso wuxuu dhan baa iska damaya boorin bayna noqonaysaa haddaad adigu program soo dhigsato oo programkaaga wax ka hadla la waayo sida hadda buuggii xeerka Ciise Wadawey saylac bay ku soo dareen meelo badan bay ku soo dareen xaraf la si buug iyo xanaasad u dhaliyo you need the channel adiga Xasan Sheekh Maxamuud iyo Bilaal Bulshaawi iyo Hadiidin waa ku arkado maal bale booyada xaarko haddaad joogo weydo waxa ka bax you need propaganda theory hadda laftirkeeda waxa u baahan tahay propaganda theory inaad buuq dhaliso tiraahdo xuduudka marka hadda xuduudka buuq baa soo socda soo buuq waxa soo socda adigu aniga isku dagaalayna mar dhow xamar waa ka qaarada ay wadwadeen
حدودك ها حدودك ها يا حدودك انت اسكا جريناني ادو افاريس markii la galo hadda kaasa soo socda xamar iyo bilaal bulshaawi iyo waa meel suke waxaan diyaarsaday istiraatiiji weyn wiilal halka waxa fadhiya haraaban oo jamaahiir la yiraahdo waxay fadhiyaan ilaa iyo cayna way fadhiyaan ilaa iyo waxay fadhiyaan burco aageeda koray fadhiyaan ani time ba istaag laga riday hadaad soo dhaafto halka حاجه كلا وريو فيديو كل شيء يا عمارو فيديو كل شيء حدودك هدا افاريس قشان oo aad timaadaan garaw iyo meel u dhow iyo khaatumo state iyo SSC iyo waxa soo dhan hada agteeda xataa shimbir yar haday soo khaldanto waa ahaad اعترافka war aliga may maqlaysaa waa saacadii kamadow iyo kacad kooriye jiray baad maraysaa adigu iyo dhageyso way maqlaysaa Omaro ما رئيسو حان دودينا وهلينا dhageyso maya si saxan u doodina ma si saxan anigu mid baa ku sheegaya wixii dawladda xuduudkeeda dawladdu waa sugaysaa hadda ku sheegaya dinna ka bari maayo ana hadda ku sheegaya hadda maqal horta hadalka dhabaysto ninku waxa yiraahdaa wada isugu warkama sugal 5 minutes waa hadlaysaa waa ku sugay wixii dawladda xuduudkeeda dawladdu waa sugaysaa taa cidna kaga haybadaysan mayso cidna ka baryi mayso hadda ma fahamtay waxaa tidhi burcad dusheeda iyo halkanaa la fadhiyaa iyo horta dhulka kaalay kanadaad ka joogtaa meel maad marin meel maad arag waxaa loogugu yidhi oo telefoon lagaaga yidhi burcad dusheedaa la fadhiyaa bro argaabe intee u jirtaa ma taqaana imisa kilomitir bay isku jiraan adigu 40 kilomitir meelahaas isku jiraan aad isu dhow waa xaraamay tani tab xaraama kastaana waxba isku jiraan de waa 14 kilomitir meelahaas haday u badato burca iyo argaabo Somaliland يكادي برعاية عرقابه وشبغلو كيلومتر دول لما أرك تلفون بلغاقين وافر يك إدقيسو عينبا يبرعو يبقل عينبا يبرعو أيا بقول يسدو كيلومتر كيد كا قاعد يبرك والله ينظم حيه تولي وانا بقول شيء دغيس انا بمره anigu ma garanayo laakiin waxaan weydiinayaa meel aan ku kalsoonahay انا بمره ba kuleeybe the distance between Burhan and Gabo in Somalia is 235 kilometer away 235 kilometer away adna 500 baad igu tiri waa 500 kilometer wax yar beelaada ya waa tan walaale ChatGPT way been ma sheego muxuu kuri taada ku raacaya straight line distance waa 235 kilometer 146 mile waayahay ilaa intaas ilaa halkaas aan kuu sheegay waa diyaarad driving road waa 475 kilomitir soo maaha waa saxan tahay eeg ma anu taadayna ku raacan doonay ilaa intaas ilaa halkaas baanay horta maxay ahayd tolay aanay eedi ka dhoweyn tan kala timi oog ilaa burcayeeg hadda waxaan weydiiyey all Somaliland kilometers Somaliland on the
hargeysa berbera way ognahay rog baan iyo waan ku maray wax walba laakiin isaga in maxay heedisan raacna mar walba si uu jawaabtiisa u helo adiga qofka wada murmaysa mar walba marka meesha ka saarna maxaan ku eegaaba ay tiraado marka anigu hadda waa haystaa calculation-kaygii kaagi ma haysataa burcayla og burco ilaa an og بقول لكم كيلومتر اوغي لا ارغاو وديارة ودنا وصدح بقول لكم هي مركا ميل برعاد اللي دول فدي اوكي انا وحنا كل شيء هذا وحنا كل شيء هي حدودك جمال كأف سيدا هذا فور اكزامبل انا بوتلان بان هي 750 كيلومتر قال كعي لغا بلابا الى بوساسو و 750 كيلومتر وي sidaas kala waxa raayna igu sheegto xuduudkaaga laga soo bilaabo awdal weer Soomaaliya iska soo gashaan Soomaaliya xagee iska soo gashaan xuduudkiina yahay where is your distance xuduudkaagu waa xagee dhageyso aniga xuduudkayga maxalka gobolayga maqan welcome to Somalia markii lagu dhahayo xagee ka soo gashaan maxalka gobolayga maqan لو يعدو حدود كاريجي جيبوتي لو يعدو مرة وحاسوران وسديد بقول iyo konton ilaa 900 kilomitir xagee way marka xuduudkaagu waa magaalada waa yoocada gobolkeeba iyo hoos tagtaa waa sool hadda taas waa laga soo tagay waa waagi hore ma isee looga soo tagaa meeshu waa yandho waa imaka yandho wax arki doontaa laasaanooda madaxweynu booqasho ku joogo adiga laftaada ka yeedhis ay adigu meel dhigto waxa xuduudka la isku qabsanaya adiga laftaada ayaa dhaqaaba ka yeedhis okay waxaan ku sheegayaa aniga tayadu hadda mayso tayadu waa mid iska basiide inay qaaciga yartii in kale waa iska basiid hadda mayso laakiin hal waxaan ku sheegayaa wixii hore waa laga soo tagay hadda Somaliland gobol bay ahaan jirtay iyo waxa sheekay ahaan jirtay waa laga soo tagay hadda Somaliland waa wadan waxyaabihii hore oo dhan format iska dheh waxa jira waxa yiraahdo waqooyi bari SSC Khartoum State of Somalia يا قوسن Somalia Somalia بعد Somalia نجيب بعد Somalia بره كنت ما قوسنتا بعد Somalia كنت دير هرتدي Somalia aqoonsan adigu saa doonto u qaado haddaan rabo fiiri haddaan rabo aniga Omar kaligiiba aqoonsan haddaan rabo ninka la yiraahdo rad adiga Omar kaliya meenu ku wada doodaynay ma fiirdi ordagan ba hadduu doono aqoonsan cidii aqoonsanaysa shaqadaada adiga ma laakiin waa Khartoum State of Somalia SSC ama waqooyi bari labada magac ka adigu jeceshahay baa ku qaadanaynaa waxay aaminsan yihiin inay yihiin maamul ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaheedu waa Firdhiye madaxweyne ku xigeenkoodu waa Jamaal wasaaraday leedahay waxay leedahay xarumo wax walbay leedahay dakhli baa soo gala canshuur baa laga qaadaa waa nidaam waa maamul sida Puntland iyo Khartoum iyo hadii ilaahay ku roon yahay sida Puntland iyo Galmudug iyo Jubbaland oo kala men dhigeyso miyaynu wada murana saacadi banu doonaa
labada maxaa u murmaynaa adigu haddaad muran geliso anigu waxaan ku iri anigu idhagayso anigu waxaan ku iri wax qaatuma la yiraahdaa ma aqoonsani mana aaminsani bala jirtaaba ku leeyaba anigu xuduudkayga aad weydiisay xuduudkaygu waa yoocada okay inaad sabab ku taageeraysid inaad aaminsan tahay inaad aaminsanin aday ku taallaa taas waxba kama bedeli karaan anigu fikirkaaga haye laakiin khaatume state inay jirto ChatGPT hadda haddaan weydiiyo inuu ii sheegayo Somaliland waa waddan buu leeyahay khaatume state-na waa maamul goboleed federaalka dowladda Soomaaliya buu leeyahay ma fahanti adiga inaad wax ii sheegtid oo aan wax kaa dhageystana oo aan kugu qaato adiga sidaad jeceshahayna dee ma soconayso aniga sidaan jecelahay oo aan anigu aaminsanahay baa maskaxdayda ka dhex soconaya waxaan aaminsanahay khaatume state oo Soomaaliya SSC ayaad adigu aaminsan tahay inuu jiro okay adiga kan kaaga jawaabaya inaad khaatume aad weydiisana haddaad weydiiso xuduudka Somaliland waqti Ingiriisku uu u jeexay xuduudkeeduna yahay muxuu ku oranayaa tawidi su'aasha that's the point okay Ingiriisku wuxuu ahaa gaal gumaysi meesha u yimid waa la iska kiciyay markii la iska kiciyayna waxyaabihii uu asagu jideeyay waa la khilaafay aayad quraan ma wadin Ingiriisku wixii ku soo degay adigana edegayso adigana haddaad taati calaamadaynayana ma laha ma fahanti Ingiriiska annagaa wasnay oo niri annagaa ku wasnay oo iska baxa imaqal Ingiriiska haddaad adigu haysatid wax rasuul oo kala ah oo wax jidayn kara oo wax kuu qeexi kara haddaad haysatid annagu waxaan haysanaa dad yar oo masaakiin oo fito ku xarayaala hadalka ka bax Ingiriisku waa gaalo cid waliba ogtay inuu Ingiriiska gaalo yahay yes soo ma ogid Ingiriiska reer Yurubta badankoodu waa gaalo cid waliba taa